رئيس الوزراء halkan wuxuu ka ballan qaaday in uu dhameystiri doono dhismaha maamulkan sidii uu ballan qaaday baa Ilaahay ugu aqbalay wuuna fuliyay ballan qaadkiisii sababta ay state-kan u dhiseen ma ahayn mid siyaasadeed ma ahayn mid qorshe kale laga leeyahay sababta kaliya ee state-kan dhismihiisa ay ugu dhiiradeen ee ay u qaadeen talaabooyinkii halkan laga sheegay ee uu tirinayay saaxiibkay wasiir bidhaan sababtaasi kaliya waxay ahayd adkaynta iyo ilaalinta midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed midnimada iyo wadajirka dalakan baa loo dhaariyay ujeeddo kale oo halkaa ay u soo mareen ugu dhawaaqeen u dhiseen loo dhameystiray ma jirtaa waxa mararka qaar laga yaabaa in lagu wada hadlo dawlad goboleed baa dusha lagaga keenay oo waxba laga leeyahay iyo ujeedada laga leeyahay wax dushana la kaga keenay ma jiro in ka badan 15 sanadood baa si istaba jooga oo aan kala go'ol ahayn dadkani halgan ugu jireen in caaw halkan la soo gaaro cid kasta oo kale waxay tabac u ahayd rabitaankoodaas iyo halganka dheer ee ay soo galeen 12 sano ka hor 12 sano ka hor aasaaskii khaatumo 13 sano ka hor baashirarka iyo wada hadallada iyo xafladaha loo qabanayay isku darka iyo midaynta sool iyo sanaag ama khaatumo iyo maahir aan goobjoog soo ahayn waxa deer bilaabmay maaha wax ku soo booda maaha rabitaan shacab maamulkan waqooyi bari Soomaaliya uu ku yimi doonis shacab uu ku yimi talamug weyn buu ku yimi halgan buu ku yimi laga dhabeeyay innaga kareer waqooyi bari ahaan waxa laynoo ka baahan yahay in guusha aynu gaadhnay ay laabta u sii deyno wax la cunayba la soo doog wixiina soo maray waa ka soo gudubnay waa ka guulaysanay guul wada jira oo aynu u dhannahay oo cidna aan laga lahayn baynu caawa dul joognaa waxaan ugu baaqayaa guud ahaan shacabka deegaanada tan madaxdooda dhaqanka siyaasiyiinta waxgaradka haweenka dhalinyarada iyo bulshada oo dhanba guul aynu wada leenahay weeye guusha tani aynu hareeraha ka joogsanno aynu gabadhaclaynta ka ilaalino oo aynu ilaashanno masiirkeena mar kale inuusan ku noqonin meeshaynu garanayno iyo wax la mid ah toona sida kaliya aynu kaga jawaabi karno guusha aynu gaadhnay sida kaliya aynu kaga abaal celin karno go'aanka dhiirashada leh ee madaxda qaranku ay qaadatay sida kaliya lagaga abaal celin kara waxa weeye inagoo dhidibada u taagna maamulku dayasho Soomaali dhexdeeda ka yeesha oo wada ilaashana oo midowna haddaynu u midowno dhidibada u taagno horumarintiisa difaaciisa ilaalinta midnimada abaalintaas ugu filan madaxda qaranka waxaan leeyahay halgankii aynu soo marray guulaystay wuxuu u baahan yahay inaan libin ku geeraaro midnimo ku geeraaro wadajir ku geeraaro Soomaali u baaqno Soomaali dhexda ka socono hadii ilaahay insha Allah ta'ala markii halakan laga saaray maleeshiyaadkii Somaliland waxa loo jeestay dawlad dhis daadajin maamul horumarin iyo midaynta bulshadeen